Cismaan Xaaji Cabdo oo ah walaal Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Jidda xaafadda Canaakish. Cismaan ayaa ahaa nin iska xogsata ah. 6 bilood ugu dambeysay waxaa soo wajahay cudur aad u xun oo dilaa ah oo loo yaqaano kansarka. Cismaan waxa uu leeyahay 7 caruur iyo 2 xaas. Inta uu cudurkan soo wajahay wax badan ayaa iska bedelay noloshiisa iyo caafimaadkiisaba, isagoo aanan awoodin in uu u xoogsado caruurtiisa, mana ahan qof sharci ku haysto wadankan uu ku nool yahay. waxaana laga doonayaa Cismaan lacag gaarayso 50,000 oo riyaal Sacuudi ah, mana ahan qof awoodo ama shaqaysan karo. isagoo ka codsanayo walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha caalamka in ay gargaar degdeg ah la soo gaaraan walaalkooda Soomaaliyeed ee soo wajahay cudurkan dilaaga ah ee kansarka. haddaba walaalaha Soomaaliyeed, sida aad arkaysa muuqaalkan waa muuqaal aan laga jeesan karin. walaalkiina Soomaaliyeed idinka codsanayo in aad wax kala qabataan cudurkan dilaaga ah ee soo wajahay Cismaan. maalinta ka dambaysa waxaa ku sii kordhaya barar, sida aad muuqaalka ka arkaysaan qoorta xagga dambe ilaa iyo dhabarka, dhabanada iyo indhaha waxa ka muuqdo barar aad u weyn, iyadoo maalinta ka dambayso bararka uu sii xoogsanayo ku sii kordhayo. haddii aanan wax laga qaban ama si degdeg ah gargaar looga sameyn, waxaa suurtagal ah in cudurkan dhibaato intaan ka badan uu u geysto walaalkiina Cismaan. Cismaan ma ahan qof hadli karo ama wax qabsan karo. cudurkan marka uu soo wajahay wax badan ayaa iska bedelay. hadalkiina waa uu ka xirmay, cuntadiina uma qaato sida loo baahnaa. waxa uu mar labaad iyo mar saddexaad uu codsanayaa Cismaan inaad gargaar degdeg ah u fidisaan dhammaantiina walaalaha muslimiinta ah ee caalamka ku kala nool. haddaba walaalaha Soomaaliyeed, waad arkaysaan xaaladda uu ku sugan yahay walaalkiina Cismaan Xaaji Cabdo. ku sadaqaysta waxaad awoodaan, ku khasaari maysaan. ilaahayna maalinta qiyaamo ayuu idinka ajir siinayaa.